kartaa oo wad la dhaqmi kartaa iyadoo aan ku mehersanayn bal haddaad tidhaahdo addoontaada adigu aad leedahay maalkaaga ka mid haddaad tidhaahdo waan mehersanayaa isma qabanayaan oo caqadka iyo meherka iyo lahaanshaha waxa miisaan badanaya lahaanshaha kol haddii aad leedahay wuu iska caqad jirayaa ma jiro taasina waa taasoo labadaas siyood ilaahay addoomahan abuurtay raggoodii iyo dumarkooda kuma qabsan karna mana faragelin karne ayaa sidaa inoo jideeyo labadaa arrimood soo dhigay oodhi ama lahaansho iyo milkulyamiin ama guur xalaala labadaa midunbaa lagula dhaqmi karaa gabadh sidii kale lagula dhaqmaaba waa saaxiib iyo sino oo halkan aayaddu ay kaga digayso waaye haddaba addoonta milkulyamiin baa lagula dhaqmayaa iyo lahaansho mar baa la guursan karaa addoonta oo meher ahaan aad maaragtay intood mehersato oori ka dhiganaysa markaas waxa weeye marka shuruudahan qofkii laga helo qofkii kolka shuruudahan laga helaaba addoonta guurkeedii xalaal u noqonaya haddii shuruudahan laga waayana waxa ay ka mid noqonaysaa dumarkii guurkoodu aanu xalaash ahayn aynu soo tirinaynin ayay ku biiraysaa markaa shuruudihii bay markaa aayaddu tirisay ku darso oo addoontan imika halkan aayaddani sheegaysee la guursanaya addoonaad leedahay adigu maaha waa addoon nin kale leey ila adigu haddaad leedahay guur umaad baahateena macnaha waxaynu isu dul taagaynaa wixii baan waaqiceenna imika ka jirin oo nacasnimadii iyo fulaynimadii waxay keentay wax badan oo diinteennu ay sheegayso in waaqica laga waayo oo meeshii aanay jirinba ayay keentay oo marka geed ay qabsadaan waayeen ayay kuwii caddaana kuwa madow ka dhigteen maaragtay addoomo carabtiina wixii usoo galay iyaguna addoomo ay ka dhigteen markii da inxiraafku dhacay dadkii baydheen waaya haddaba marka qofka shuruudahan laga helo addoon nin kale leeyahay buu mehersanayaa xikmaddu u mehersanayaana waxa weeyaan inuu sina kaga dhowrsanaado oo sina uu kaga dhowrsanaado goortuu haddaba guursan kara 6 shardi bay aayaddu sheegtay aba 5 ama 6 labadaba la odhan karaa waman lam yastadic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat qofkii dawl buu waayay dawlku waa maalka maal baanu haysanin uu ku guursado gabadh mu'minadahoo muxsanada mu'minad muxsanada macnaha muxsanada halkani waxaa looga jeedaa waa xor alxaraa'ir almu'minaat gabadh xorahoo mu'minada maaluu ku guursadaa buu qofkii waayay kow kaasi waa shardi shardiga labaadna waxa weeye fankixuuhunna biidni ahlihinna waa in kii lahaa uu kuu guuriyo shardiga saddexaadna waxa weeyaan wa aatuuhunna ujuurahunna waa in meherkeedii loo qadimo la siiyey ila waa intuu dafiraabee maalka xoolaha nin kalaa leh shardiga saddexaad mise afraad shardiga saddexaad isaguna waxa weeyaan muxsanaatin hayra musaafixaat waa inay qof cafiifada tahay oo dhowrsoon oo aan sina lagu aqoon shardiga shanaad ama lixaadna waxa weeye dalika liman khashiya alcanata minkum qofkii waa inuu sina ka walaaco oo uu socdo wallahi naftaada haddaanad meelaynin armay meel xun ka dhacdaa haddaanad ku midaynin cidaad guursato armay sina ku dhacdaa haddaanu ka baqanaynin sino iyadana xalaalu maaha wakaa shardiga lixaad aynu tabaynaa waxa weeyaan fa mima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat addoontu waa inay mu'minaat addoontu waa inay mu'mino tahay waa inay tahay mid cafiifadahoo dhowrsoon saa aynu sheegayno qofkii waa inuu waayaa maalkii uu ku guursan lahaa ehelkeedii waa inuu weydiistaa sina waa inuu ka baqdaa waxaa la odhan karaa waa 6 haddii la yidhi tu xorahoo uu guursadaabuu xoolo u waayay waxaa laga fahmayaa tu xorahoo uu sii qabaana waa inaanay jirin tu xora oo imikaba xaas u ah oo dee uu ku dhowrsoonaado iyana waa inaanay jirin kol haddii la yidhi wuxuu kari waayay inuu mid guursado xora dee tuu imika sii qabaana waa la iska fahmayaa biariiqi alawlaa 6daa shardi marka qofkii laga helo xalaal bay u tahay addoon inuu guursado nin kale leeyahay nataa'ij baa ka soo baxaya haddaba gabadh caadi oo la guursaday addoon la guursadaa la mid maaha natiijada ka soo baxaysa waxa weeye kow carruurta ay kuu dhashoo dhami iyaday la mid noqonayaan macnaheedu waxa weeyaan wada addoommay noqonayaan oo waxa ay u xaadirayaan ninkaa iyada iska leh ayay xoolihiisa ku jiraan
taasi waa midda labaada ku jirta waxa weeye waqtigaa la idiin qaybinaya ilaa qofkani cid bay ku kayroofsanta oo qof baa leh maalintiina iyada isaga ayay la joogaysaa sayidka habeenkiina dee kan ay nin xaaska u tahay ayay la joogaysaa waayo masaariifta yaa bixinaya qolo waxay leeyihiin dee kan maalintii ay la joogaysaa ee u shaqaynaysaa dee ha bixiyo qolada kalena waxay leeyihin me kan habeenkii qola kalena waxay leeyihin ha loo kala baray ila waqtigaa qaybsane cadaaladda ha la eego taasi waa baab kale waaya natiijadaasoo ka dhalanaysa daraaddeed